xilliga baarlamaanka Soomaaliya la horgeynayo heshiiskii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo la shaaciyay sida lagu sheegay qoraal goordhow ka soo baxay gudoonka golaha shacabka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinta beri ah oo sabti ah yeelanaya kulan wadajir ah oo ka dhacaya xarunta golaha shacabka ee ku taala gudaha xarunta Villa Soomaaliya kulankan wadajirka oo ah mid xasaasi ah ayaa la filayaa in labada aqal lagu horgeeyo heshiiskii dhawaan ka soo baxay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kaas oo la xiriiray hanaanka doorashooyinka ee Soomaaliya beri oo sabtiya taariikhduna tahay 26 September waxa jira kulan wadajir ah labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya yeelan doonaan kaas oo ajenda looga hadlayo codeynta heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay goordhow golaha shacabka iyo sidoo kale shaqada